cilmi ay sameynaysaa ma jirto waxgaag halkani waxa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawirro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedaysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xilligaad isbarateen inaad noo sheegto sagale horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askari TV oo isagana halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd hablayo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddo hadda laga joogaano waa 2 sano 2 sano waxagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ما إنه تلفون كود هذا الله سينا نشرقنا أنت تلفون كود هذا لين لكن نشرقنا أنا يدو حتى سوقها الرسا حتى سوقها الرسا أركتي أهان هذا سوقها الرسا لكن حرير واحد كو حريري شرتين تلفون كها بين على تلفون كها واتساب كان ماسنجر كان تبون كود هذا الجري لكن سلا يفرقنا نشرقنا ما أنت سوقها الرسا قاب كذا حريري شرتين نصار شرتي وحوها قاب سوقانات أن ها مركها يعني هي قاب كان سكوبرني دي ودي سي صارت سكوبرني أول مرة واحد هيد سوقان يفن سكوبرنا ساسين maxaa intaas ka sii dambeeyay intaas waxa ka sii dambeeyay aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan tawakkalkaas xiriirkaasi intee lag buqaat wallahi horta waxaan soo xiriirinay inuu sheekaysanay muddada aan shaqaynay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddada aan sheekaysanay ama yani xiriirka lahayn hal sano iyo dhowr bilood meel hawo noqonaysa waxaga markaynu intaas ka nimaadno waxa timid magaalada Hargeysa qaab nooceed ku timid magaalada Hargeysa halkeedsa ka timid marka hore waxaan ka yimi magaalada Egypt wadanka Egypt gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meelahaas marka sababta ku yimi iyo arrimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhex maray ama aanu isku weeroon ka wada soconay sida dad badan oo xogaal noo hibay ka dhagsiin bay ahayd saas waxagaag waxa jirtay in lagu xidhay oo lagu xidhay magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonkana lagaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayay inaad nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadkan yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan aniguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadda bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisay qalinliyo maandeeq ay wada qaadan aniga Safiya doornay aan ka soo dareernay 5 galabnimo Crown Hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynahay xagan suuqa isku nimaadno deetana inantii telefonkeedii baa xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo ila soo haashay gabadh wariyay waxay sheegtay in iyadii Safiya la xidhay xagee la idinka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xidhay aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xidhan baa la soo celiyay Safiyana waa la haray cidi madiinaarkiisii miicina ma yarkeen marka waa saxay hadda xameelay ka raadina ma garanaysaa ma garanayba meesha ma leeyahay dan waxaan ku raadinaa raadinayo inaynu soo helno inaynu isku dayna saldhiga dhaxaanimi saldhiga dhex markaanimi wax la igu kuma jirto koodbuur baan tagay markaan koodbuur tagay ku gabadhaas meesha ku jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa la iga qaaday telefoonka oo la igu soo Cabdi Ciise muti ha telefoonka aan u baahna teena su'aashan askarta weydiiyay waxay noqotay qof xidhan baabana socdaa maxaa telefoonkayga laga rabaa kadib waxa la igu telefoonkaaga waxa u baahan CID-da وانا امر انغا naga sareeyo telefonkaygi waan siiyay waan deegtana ka tagay yani intii markaa la hadlo waxaan ku oranayo oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayo gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu ma arag anigana telefonkaygi baa laga qaaday labadii habeenimo mar ay ahayd ay haddana inaan soo waxay ku tusay Safiya xanuunsan ay dawooyin iyo alaab u geeyno dan inantu waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdi Naasir Macalin Ciidi Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay gurigii ugu timi waxay u timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Safiya dawada u geeyno tii xanuunsanaysa
okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan salgid ku noqday markii labaadna waa la xidho wax lagu adigana waa lagu baahan haye so habeennimadii halkii baan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiimaha ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku dhahay xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegan aan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan lay qaaday CID da leegay CID da maanta ma ku xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku maxaan ku xidhanahay waxa la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba isagoo kan gabadha u dhiibay baan dina weydiiyay waxa la igu yiri waa ka gabadha u dhibtay gabadhaasi waa Safiya marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitayba isagoo xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contact la sameysay marka waxa la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wada dan waxa la igu yiri waa saxiix waxaan u baahnay gmail-kaaga يعني dadka qaar baranka baraha bulshada ku soo qorayeen inuu istifaaciyayo hadii la waraysto hadalka runka ma sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta Hargeysa jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan waxa la igu gmail-kaaga aan u baahanay baasuurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu waa hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labadan bad gmail-kaaga baa suulkiisay weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay telefonkaygii baa la iga haystaa dimension aad ka shaqeyn jiray macna la iga qaadiyo qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegan waxay telefonkayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba markaa la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ninkan haduu kiis leeyahayna ana xidhaya hadii kan telefonkiisa soo siiyay anoo yimaado baa la yiri berito la galanoodkii markaan tagay waxaan u tagay waxa la dhibay waxa la igu niyo fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefonkaygii oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday telefonkaygii la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in telefonkaygii la restore gareeyaa maxay tahay deena wuxuu igu yiri arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay telefonkayga si qalad ah u dhacdo gmail-kayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku dan waxa la igu waxaan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkan waa mid qalad kugu dhacay marka waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xalagaygu iyo ka safiyay saas waa xaaladda ka marayna taas ay ahayd وحاجات dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaaye lagu soo celinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay Safiya sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad baastoolad madaxa kaga qabatay oo tiri haddaad lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaaye naftaada sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambaysiinay maxaa ka jira niyo horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyay yani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yani horta ariga iga suurtooba iyo waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qaba yani midda kale qofka doonaya qof inuu ceebaya isagu iskama bilaabo qof adduunyada ceeb ku naaxa ma jiro oo yani isagu yani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxa moodaya ma garan karo de meel ku nool yahay ama dadka qeylinayo inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebaya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel ugu arkay toona almiina xitaa hadii yani horta wax iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii se xitaa dadku waxaanay isweydiinayn haddaan anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay maan garan waayin xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha waxaan aaminsanahay shil aniga Safiya nagu wada dhacay inuu yahay cid kasta oo falka ka dambeysay waxaad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad sameynin falkan maadaama dadkoo dhan ay aaminsan yihiin oo ka aamineen inaad waxaan sameysay adigu sidaan horta ku sheegay aniga Safiya horba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay hadii aan markaa u baahnay ceebaan iyada ula bareeraya inay jirto ma waayin sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskama bilaabeen waxgaag abwaan Cabdi Ciise waxa intaasi sii dheer
maadaama ninka gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugaygi tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhex bilaamatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san horeba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu sheegay waa ka madax banaanay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya relationship naga dhaxeeyay sheeko bisayna gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto hadii wixinta ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo madhugta diyaar baan waay marka waxa leedahay wax qabiso oo meesha jirta ma jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli gurku waa wax weyn Safiina oo gabadh caana marka la isbursanayna wax qarsoon maaha marka la isfurayna wax qarsoon maaha marka hadda tusaalahan walaashii Safiya san anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koobaad ee ay yani arrinkan laga jabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof cid relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareegsiga ay shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabay oo jecel nahay dadkana naga dhax baxan marka saddexaadna waxay sheegtay in furiin dalbatay kiina ay ku guuleystay oo la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadallo midnimadu dhaweyn sax wala la marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel loo yaala habeelaatay ma jiro waxagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha aan hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay ma kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sina waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo wayna maaha because waxay tiri maaha خلاص waxagaag waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia u baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagal adigu ogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu ma arkaa in hadal meel waayay ee hadan baxsaday hadda uu wanaga soo noqday cidii doonaysa hay timaadada waxagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas san horeba kugu sheegay aan waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relation ka dhaxaya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhexmar kala laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way sasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxagaag waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala anigu Facebookigi muddo 5 cisho deactive ka dhigo hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falow ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax Facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal Facebook baan isticmaalaa kiina deactive ka dhigo hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabay way soo gaaday hanshabad way soo gaaday qaar leewan ku dilayna way soo gaaday qaar la hargeysa sidoo soo noqon bay soo gaaday yaanihi tii adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani hadal aan meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan de waararkayo waan dhaafayo
laakiin haddii ay tahay adiga habaar kaysa leecayo haddii habaar tahay adiga habaar kaysa leey habaarayo haddii aan jabaad tahay wax qarsoon bade maaha markaas u soo jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaarayay oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan horta caawa ilaahay magan ugahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habaarkeeda aanu qasaarin mid ilaahay ka aqbalo uu noqdo haddii markaa hadalka waan kuusoo wadaaya haddii waxaan anigu sameeyey uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow habaartamaysay waxaan habeenka caawa jecel in ilaahay ka aqbalo waxaan geystay hadduu anigu yahay inaan ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco haddii kalena cidda geysatay uu ku dhaco sideed u aragtaa in tabriyahan dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sideed u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaasan ka hayaa iyo waxaasan kugu sameyn doona waxaan arkaa wax aad iyo aad u foolxun وحرانا دقن كإسلام كبحسن دين الإسلام كبحسن دقن كسومالي كبحسن يعني أو واحدة لتلمام واحد لقول تلمام كرعان وشرين به وحاجات مركي إنه كسر نقلنا واحد شرتا هاس أي صفية قاطو هاس تو حلا هذا وقيقيا هاس تاسي بالقصة ذا أيام شعلينا النوبة شكس ni horta heestaasi waxyaabo ugu badan la soo diriyay dadku ay ilaahayeen ninka gabadha san ugu hoybaad horta ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa qofna madidiisa laguma gowraco heestan horta ana iska lahaa qisada heestuna sidan ma yahayn aniga Safiyo wax naga dhaxeeyna ma yahayn waxaan taayada ka sameeyna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxa jirtay in Safiyo habeenada ka mid la soo hadashay yani inaan saaxiibnahay oo leeyahay Khadar Fiyoore Khadar Maxamed Abukur ninka la xanka saaray wasaqan halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa uu tirniyo gabadh baa jirta doonaysa hees deetana qisada dhaba markaa maxay u baahan tahay in looga sameeyo waxa uu tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahaay wuu dhibay deetana wuu furay ciyaalkii iyadoo haysata wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xagga ka eegaysay inay kaga raysato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa kiina iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay hadda qof ay ka go'aan qaadan karto ama ay ka tagi karto ma aha deeto waxay u baahan tahay in qisadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo waa sax waan ku wuri habeenkii waan heesta beejka koobaad sameeyay ninkaasoo ila fadhiyay laxan ku saaray Khadar Fiyoore dan gabadha heestii waqtiga ay soo bixileed aniga Safiyoon ka wada waan weydiiyay marka waxaan ku wuri gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo deedna waxay ku tiri gabadhii abeed baa dhintay gabadha waxay igu sheegtay magaceeda in Farduus la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganay markii dambe inay Nairobi qabatay marka heestaasi waxaan naga naqoosayna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyay ma yahayn waxaan qisadayda ka sameeyay ma yahayn ee waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida aniga iyo ninkaasi waa aanu ka marxaati ahayn ee walaashii anigu ma aan sloognahay waxaad ugu dambeyn fariinta diraysaa maxay tahay ugu dambeyn fariintan diraya aan rabay inaan halkan ka diro ama aan ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan dadku horta galbeys ka qaadan waqti xaadir xitaa anigu imka waxaan dhibano waa cidaan dhibano oo hayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook iyo YouTube ka qaylinaya marka laga reebo hadallada walaashii ka soo yeerin hore uga soo jawaabay laakiin Safiyo ma oran ninkana waxa ka soo dhigay Safiyo ma oran ninkana ay ceebeeyay oo inta jeeray hada shabadii qof yaani sidii Ilaahay ku ogeeyay maxqad tahay u hadlaysa beed waan uga mahad celinaya laakiin ummadda leh waxaan baa dhacay iyo waxaan baa dhacay iyo sidan baa dhacday iyo sidan baa dhacday waxaan leeyahay waxa kulli hubsimo hal balastaabay Soomaalidu tirada qof kasta iyo wuxuu qabanay Ilaahay baa marka waligiin yaa leeyihiin dadka waxaan ku wanayaa inaanay gar qaadin iyagoo on labadii qof labadaba arag intaas uu gadhay aad iyo aad noo salaamay kii soo caayina waan salaamayaa kii soo hawaarina waan salaamayaa kii difaacina waan salaamayaa dhammaan waa dadkayga iyo kulli hadii ama qalad aaminsanayeen oo yani fikir qaldan laga dhaadhiciyay iyo intii ka saxan haysatay aniga ila socotay labadaba maanta waa dadkayga iyagana waan salaamayaa وحقاق آد بدو ما هتسنتهاي كاسنا وحوها عبد عيسى عجون أبوان كداء ذير وانو كوري سنيني أرميه براها بلشدة قبصدي ولاشين صفية تصبو تانية كلانتي دنبه سداسينا بتقلي آد بدو ما هتسنتهاي